السلام عليكم ولا Soomaalida meel kastoo joogtaan waa idin salaamaya waxaan idinku salaamayaa salaan boqortooyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu soo dhawaada meel kastoo joogtaan waxaan idin leeyahay meel walbo joogtaan maalin wanaagsan habeen wanaagsan xilli kastoo idin tahay sida aad ku aragteen title-ka kore maanta caawa xilli walbo idinta waxaan idin kala hadlayaa ama aan rabaa inaan idinla wadaago qaabka ugu fudud ee loo maareeyo problem walbo oo kusoo wajaho gaar ahaan waxaan caawa si toos ah ama maanta aan diiradda u saari doonaa hadduu ilaahay ka raali noqdo sida loo manage gareeyo stress warniyo waxaa dhacay waxa la dhaho lockdown adduunkii coronavirus ka dhacay covid-19 dadkii oo dhan waxaa lagu xareeyay guryaha sidii arigii xoolihii oo kale waxaa dhacday dadkii inay isla wada hadlaan waxaa dhacday dadkii stress inay qaadaan qaarkood waxay u dhawaadeen inay waashaan waxaa wadanka 2020 caalamka waxa u yimid wax laga sheekeyn karo oo annagu maskaxdeena ay ka hadli karto ma ahan waxyaabaha ugu weyn ee laga dhaxlay ee dadka dhan ay aad qof walba markaad aragtid aad ka dheehanaysid waxay tahay wax la dhaho stress dadkii way waasheen haddaba stresska qaabka loola dhiil galay sababtoo stress waxa keenaya qofkii shaqo ma lahan waxba ma barto ilaahay kuma daranaade banooni lama ciyaaro waxay noqotay guriga in isku soo xiro soo marka maanta waxaan ka hadlaynaa stresskan qaabka loo manage gareeye ugu fudud stresska oo manage gareyn kartid waa 5 qodob aad sameynaysaa iyo kuwa kale oo kasii muhiimsan oo aad idinla wadaagi doono hadduu ilaahay kala noqdo stresska marka ugu horeyso qodobka ugu weyn ee lagu baabiyo waxay tahay dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aad badisid waxaa waayo methodka ugu weyn ee stresska lagu baabi'iyo labo plan your day ahead maadaama aan soo hadalnay oo aan niri wax la qabta ma jirto dadkii guryihii bay joogaan ilaahay kuma darnaadee lockdown baa jiro curfew baa habeenkii jiro oo haddana aan ka hadalnay plan your day ahead waa sidee waxaad u qorsheyn kartaa maalinkaada qorshahaad qorsheyn kartid wuu fara badan yahay waxaad samaysan kartaa inta guriga la joogo waxaad baran kartaa waxyaabo fara badan waxaad samayn kartaa buugaagti baa guriga ku taalo ilaahay kuma darnaaday jimicsi baad samayn kartaa waxaad samayn kartaa banooni baad aadi kartaa waad soo dheeli kartaa waxaad samayn kartaa naftaada inaad horumarisid waxaad samayn kartaa waxyaabo fara badan oo adiga 24 saac aad samayn kartid inaad schedule ama timetable aad u samaysid timetable-ka markii aad u samaysid subaxii aad soo kacdid 2 saac halkaas aad 3 saac halkaan samee 4 saac ka shaqeey macallin jirkaada 5 saac halkaan yani ismashquuli taas waxay ku suurgelinaysaa inaadan isla hadlin isku day inaadan kaliya meel joogin kaliya markaad meel joogtid probability inaad stress ama isla hadashida way u badan tahay qodobka labaad maxay tahay only work on tasks that are important to improving your life qodobka labaad waxay tahay waxaad kaliya oo aad focus garaysaa shaqada ugu muhiimsan waxa ugu muhiimsan ee noloshaada horumarinayo baad focuska ama diiradda saaraysaa maxay yihiin wax adiga noloshaada ku kordhinayo value ama qiimo ku kordhinayo maxay noqon karaan waxa aad garanayo waxay noqon karaan inaad maxaa la dhihi jiray ilaahay kuma darnaadee aad samaysid lama soo tirin karo wixii markaasi aad samayn kartid ee gurigaada yaallo ee aad leedahay waxbaad tusaale kale da social media waxaa jirto fursado fara badan oo looga faa'iideysan karo fursado badan baa jirto qofku wuxuu samaysan karaa online xataa waxaan maqlayn online-ka waxa laga sameeyaa lacag baa laga sameeyaa waxaa jiro forex waxaa jiro fursado badan oo noloshaada aad ku horumarin kartid marka keli ka shaqee oo ka fikir diiradana saar waxa noloshaada adiga wax ku horumarinaya waqtiga ha ku dhuminin wax noloshaada aan wax ku dareenin qodobka saddexaad get more rest noloshaada naftaada maskaxdaada waxay u baahan tahay inaad nasatid sida raashinka jirkaada uu raashin ugu baahan yahay bay maskaxdaada hurdo ugu baahan tahay iyo maskaxdaada nasiino ugu baahan tahay iyo maskaxdaada inay hurdo u baahan tahay haddii aadan seexanin almost hadaad walba aad 3 seexatid subaxina dhaqso soo kacdid maskaxda waxaa lagu talagalay bini'aadanka 8 hours consecutive 8 saac oo isku xigto
inay hurdo 8 saac haddii ay weydo maskaxda waxaa ku dhacayo cudurro fara badan bay u sahlan cudurka kansarka madaxa ku dhacayo waxaa kugu furmaya stress waxaa la dhaho dulqaadka kaa yaraanaya hurdo markaad weydid dulqaadkaas oo kaa yaraado madaxa ku xanuunaa wuxuu keenayaa stress marka isku day xilli fiican inaad seexatid inaad nasiino fiican heshid in ilaahay kuma darnaadee naftaada maskaxdaada aad ka fakirtid oo xilli fiican aad seexatid kana fakirtid isticmaalkaad isticmaalaysid social media saameynta uu kugu leeyahay timetable samee waqti soo kac waxay dhahaan Englishka early to bed is early to raise qofka hadduu xilli fiican seexdo xilli fiican buu soo kacayaa halka ay dhahaan shimbirta subaxii kacdo way ka fiican tahay shimbirta gadaal maxaa la dhihi jiray ka kacdo qodobka afraad maxay tahay talk out your situation with someone else marxalad walbo aad wajahaysid xaal walbo oo aad wajahaysid oo very serious ah waxaan ognahay adduunka qof walbo joogo problem buu wajahayaa ma jirta maanta qof aan problem wajahaynin marka su-aasha waxay tahay sidee problemkan stresskan aad ku xallin kartaa haddii markaasi issue ama arrimo ay ku haysato waxaad samayn kartaa qofka saaxiibkaa ee kuugu dhow dee qof saaxiibkaa waay waa best friends oo saaxiibkaa ah baa waxaad ka raadsanaysaa waano ama talo celin arrintaada inaad u sheegtid taas waxay suuragelinaysaa in saaxiibka uu ku siiyo afkaar amaba talooyin fiican taasoo kaa yarayso stresskii iyo wixii aad problemkii aad xalka u lahayd qodobka kale maxay tahay look for the lesson qodobkan waxay tahay wax walbo kugu dhacay waxaa lagaa rabaa stress wax kastoo dunida problem walbo soo wajahdid waxaa lagaa rabaa inaad noqotid mid cashir ka qaato dhib ma lahan qofka inay wax uu soo wajaho qalad in la sameeyo nolosha waa qayb ka mid ah tiirka maxaa la jiray nolosha waay qof aan qalad sameynin oo aan qaladad fara badan gelin guul ma qaadin haddaba haddii aad aragtay qof aan weligiis dhicin oo ilaahay kuma daraadee wax ku feel garoobin waa qof aan weligiis guulaysanin marka guul darradu ugu horeyso waxay gogol xaar u tahay guushaada bari marka meeshan waxay ka hadlaysaa waxay tahay qaladka aad maanta samaysay bari ha samaynin stress iyo waxaan ka hadlaynay barnaamijka ilaahay kuma daraadee how to handle your problemkaada qaabka loo hagaajin lahaa marka maanta stresskii kugu soo wajahay iyo problemkii meeshuu ka yimid yaysan beri kale iyo ku dagin so waxaa la yidhaahday muuminka godda 2 mar lagama qaniino marka yaysan hal qalad 2 mar ha ku soo celinin wixii aad mar samaysay ka baro cashir asxaabta waxaan jeclayaa inaad la socotiin aad wax ka faa'iideen intaasaan kusoo gabagabeynayaa haddii aad tahay markii kugu horeysay oo barnaamijkan aad kasoo qayb gashid waxaan kaa codsanaynaa subscribe inaad siisid haddii aad barnaamijkan jeclaatay qaabkan u wadno waxna uu kuu faa'iideeyey lagsi haddii aad doonayso inaad afkaarta kaa guuxayso nala wadaagto commentiga kusoo qor haddii aad doonayso barnaamijyada noocan oo kale ah inay daawatid subscribe haddii aad doonayso saaxiibada qaaliga ee aad jeceshahay inay iyaguna ka faa'iidaan channelkan ama mawduuca maanta ka hadlayno share garee tan iyo kulankeena dambo amaana allah. Assalaamu calaykum.